mudanayaal iyo marooyin ku soo dhawaada qisadani oo ah qiso naxdin leh. qisadani waxa ay ku dhacday lamaane lagu kala magacaabo Asad Maxamed Aadan iyo Ifraax Cali Macalin. Asad waxa uu ahaa arday dhigta jaamacad ugana harsan tahay 2 fasalood ama 2 galaas. Ifraaxna waxa ay ahayd arday iskuul dhigata oo foomana ama fasalka 11aad. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Ifraax waxa ay suuqa ka tabanaysay in ay soo iibsato buugaag, ayadoo weliba xaafadda ka tagtay xilli ay tahay duhurnimo, qoraxduna ay kulushahay. ayadoo ku sii dhow magaalada ayaa waxaa arkeen dhalinyaro ciyaal suuq oo meel wada fadhiya, isla markaana waa ay daba kaceen oo ayadana waxa ay sii fududaysay socodkeeda. kadib waxa ay gaartay meel luuqa ama meelo laablaaba, isla markaana dhalinyartii soo daba kacayeen waxa ay isku dayeen gabadhii in ay xoogaan. waxaa soo orday mid ka mid ah kuwa ciyaal suuqa ka tirsan, waxa uuna isku dayay inuu gabadha gacanta ka qabto, ayadoo weliba ku qeylisay dharbaaxna ku dhufatay. isla markaaba waxa ay soo kaashaday dhammaantooda oo meel waxa ay geliyeen indhuhu eegi kareen. waxa ay bilaabeen in ay jiijiidaan dharkeeda iyo gacmaheeda oo idil, ayadoo weliba markaasi qeylinaysa, marba marka ka sii dambaysa ka sii qeyli daraysa. ayaa waxaa meesha soo maray wiil, waxa uuna maqlay qeyli ka yeeraysa dhankiisa midig, isla markaana waa uu gudbay oo waxa uu u gudbay dhanka qeylida ka yeeraysa. waxa uu arkay gabar meesha lagu jiijiidayo oo ayadana aanan raalli ka ahayn. isla durbadiiba waxa uu bilaabay inuu dhagax qaato walow ay ka badan yihiin kuwa meesha ku jira. waxa uuna bilaabay marna inuu ku tuuro dhagaxa, marna inuu u qeyli dhaamiyo shacabka meesha jooga ee guryaha ku wada jira. dhalinyartii ayaa waxa ay bilaabeen in ay dhagaxeeyaan wiilka, isna ma uusan bixin oo dhagaxyadii ayuu weli waday iyo qeylidii. dhalinyartii ayaa orday ayagoona gabadhii waxba aanan ku samayn, keliya ay ka wada qaateen lacagtii ay ku soo wada adeegan lahayd. meeshaasina waxaa isku bartay Ifraax iyo Asad. lacagta buwaagtana waxaa bixiyey Asad, waxaa suuqana u raacay Asad. Asad waxa uu u sheegay Ifraax in uu yahay arday dhigta jaamacad, iskuulkana ay uga harsan tahay 2 fasalood. Ifraaxna waxa ay u sheegtay in ay tahay ardayd iskuula weli, in ay jaamacadda uga harsan tahay 2 sannadood. meeshana waxaa ka dhacay barasho guul laga gaaray. markii ay suuqa ka soo wada laabteen oo uu keenay ilaa albaabka xaafaddeeda, markaas ayuu ku yidhi, Ifraax, ma kaa heli kala nambarkaaga adigoo raalliya, si khaladna aanan ii fahmin, keliya waxaan ahay walaalkaaga. Ifraax ayaa ugu jawaabtay, maba ahan in aad saasi dhahdo, waxa ay ahayd inaan aniga nambarkayga ku siiyo, laakiinse adigaaba i weydiiyey, taasna ma ahan mid dhib keeni karto. waa kan nambarkayga qoro. saasna waxa ay ku siisay nambarkeeda. kadib Asad ayaa waxa uu diyaarinaya cashar looga baahan yahay beritoole, asagoo dhammeeyey cashirkii uu diyaarinayay, ayadoo saacadduna ay ahayd 12 habeenimo ama 6 saac habeenimo. markaas ayaa waxa uu soo xasuustay Ifraax in uu waco. xilligaasi ayuu Ifraax soo wacay. Ifraax ayaa soo kacday, taleefanka ayay ka qabatay. waxa ay ku tiri, yaa waa adiga? markaas ayuu ku yidhi, waa Asad. isla markiiba Ifraax waxa ay iska dhigtay ruux aanan hurdin, wallow uu asaga abaal u galay. waxa ay ku tiri, ii waran abbow, xaaladda caafimaadkaaga iyo wax la mida. kolley marka la isdhaafsaday caafimaadka iyo markaas ayuu ku yidhi, ma hurdadan kaa kiciyey? waxa ay ku tiri, maya, igama kicin oo horaan u soo jeeda, caawo hurdaba ima hayso. ayadoo ulajeedkeedu ahaa, waa nin abaal kuu gale, ha dhihin waan jiifay oo waad i kicisay. ayadoo sheekada halahaas maraysa ayuu ku yidhi, waayahay, hadda seexo oo si walba ay noqotaba ku seexo, beri anaa ku soo wici doonay. waxa ay ku tiri, waayahay, waadna ku mahadsan tahay abaalkii aad ii martay, anna kuuma mahad celinne. markaasi ayuu ku yidhi, waa wax caadiya, wax dhibaataa ma lahan. kadib subxii ayaa waxa uu u soo diray mesajkaasi oo ahaa, ii waran xaaladdaada caafimaadkaaga. markaasi ayadana waa ay uga jawaabtay mesajka, ayadana waxa ay ku tiri, waan fiicanahay oo adiga xaaladdaada caafimaadkaaga.
isna waxa uu ku soo jawaabay anigu waan fiicanahay. waxaa sii raacsana hadalkiisa ma isticmaashaa aaladda internetka. waxa ay ku tiri haa waan isticmaalaa, waxaan ka isticmaalaa Nimbus iyo Facebook iyo WhatsApp. markaas ayuu ku yidhi isii Facebookkaaga, WhatsAppkaaga waan bahayaaye. Facebookgeeda ayaa waxa ay uga qortay WhatsAppka. isna waa uu arkay, waxa uu ku yidhi waad mahadsan tahay, adigaa mudan ayay ugu jawaabtay. halkaasi waxa ka bilaabmay barashadooda iyo sheeko dhex martay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu ku yidhi inaan kuu soo martiya ayaan ayadana waxa ay u aragtay wiil ixtiraam leh, reerkeedana ugu imaanaya iyadoo weliba u haysata si walaalnimo. markaasi ayuu u yimaaday xilli ay tahay galabnimo. waxa ay bartay waalidiinteeda oo idil, waxa ayna u sheegtay wiilka badbaadiyey inuu yahay Asad. isna si wanaag leh ayuu ku bartay reerkeeda oo idil. kadib marka laga soo gudbo reerkeeda ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday sida ay khadka ugu wada hadli jireen inuu ka codsado in ay guriga ugu imaado. markaas ayaa waxa ay ku tiri waalidkayga iima oggolaanayaan in aan bannaan baxo. isna waxa uu ku yidhi waayaa xitaa qof soo wado. markaas ayaa waxay isku dayday in ay waalidkeeda ka codsato. waxaa lagu yidhi ma waalatay markaad adiga wiil u tagayso. markaas ayay ka diiday, waxa ay ku tiri waalidkay iima oggolaan in aan meel aado. waayahay dhibaato ma lahan, isagoonan ku xumin ayuuna uga mahad celiyey. waxaa dhacday isla isbuucii ama weygiiba inuu ku soo laabtay guriga gabadha Ifraax. uu ehelkiya dhammaan soo wada salaamay, Ifraax oo weliba ku sii faraxsan. waxa uuna u sheegay in uu leeyahay xaflad aroos, Ifraaxna ay ka soo qayb gasho. waalidiinteeda dhammaan waxa uu ka codsaday Ifraax in ay fasax u siiyaan si ay uga soo qayb gasho xafladda aroos ee Asad. waalidiinta dhammaanna waa ay ka oggolaadeen in ay ka qayb gasho xafladdaasi. Asad aad ayuu ugu farxay arrintaasi. nasiib wanaag waa ay ka soo qayb gashay Ifraax xafladdaasi. Asadna waxa uu ugu talagalay qol khaasa inuu ku soo dhaweeyo Ifraax. waxa uuna balamiyey habeen 3 saac ama 9 habeennimo. Ifraax iyo saaxiibadeeda oo isla socda ayaa yimid. xilligaasi Ifraax ayuu ku soo leexjiyey qolkii uu ugu talagalay, gabadhii kalena wallow uu geeyey goobta ciyaarta. wakhtiguna uu ahaa gabagabo, balse uu isaga talagal uga dhigay inay yimaadaan xilliga gabagabada ah. waxaa dhacday inuu Ifraax qolka la galo una sheegto jacayl, inuu jeclaan jiray haddana jecel yahay, balse sugayay jaanis nuucan oo kala. Ifraax ayaa ka diiday oo dhan walba uu ka soo maro. waxa ayna ku tiri ma gurigan kaaga tagaa mise waad iga dayni kelmaddan oo kale. markaas ayuu ku yidhi inakeen waxyar ayaan kaa dhaadhicinayaa. waxa ay ugu jawaabtay waxba ha iga dhaadhicin, hadhowna halkaanaan ka sii tagaya xaafaddeeda u laabanaya, iska keeda. markaas ayuu ku yidhi waan ku baryaa inakeen guri hoos ku yaalla oo saaxiibkayga ku soo wada hadlaynaa, intu waa buuq ana wax kaa dhaadhicinayee. markaas ayay ku tiri gabar saaxiibadeeda ayaa ila socota oo keligayga ma degan karo, ayadoo ulajeedkeedu ahaa cabsi. markaas ayuu ku yidhi gabadha cid taabanaysa ma lahan, ha ka baqin gurigayga joogtaa, gabadha waa la ilaalinaya, ha u baqin. adna ina keen oo saacada yar keliya wada hadlaynaa. diyaar uga ahaa wiil saaxiibkiisa ah. waxaa jirtay wiilka saaxiibkiisa Asad uu diyaariyey midka wejiga lagu tirto in uu mariyo geed suna si ay ugu socdo Ifraax. Ifraax markay qolka soo gashay, geedka waxaa loo dhiibay Asad. Asad ayaa qolka la galay oo geedkii ku suuxiyey maadaama hadda ka hor diiday. Asadna wixiisa ma uusan ahayn jacayl ee waxa uu ahaa dareen keliya. waxa uuna damcay geedkii inuu sankii uga qabto. waxaa dhacday markuu sankii uga qabtay ayadoo gacanta hadba isaga celinaysa inuu xoog ugu sii celiyo. dabadeed waxaa dhacday hadba inay lugaha la leexjiso iyo gacmihiiba, wallow afkii sunta loogu hayo aysanba ka hadli karin. waxaa dhacday marba marka ka sii dambaysa in ay ka xoogsato lugta, ay marba dhinac u turto, haddana gacanta sidoo kale. marka dambe waxaa gaduutay wejigeeda oo idil. marka ugu dambaysana isagoo idil gacantiisa weydaysay oo naftii ayaaba ka baxday. ilan geedka lagu qabtay ma uusan ahayn mid lagu suuxee.
ka yeeraysa dhankiisa midig. isla markaana waa uu gudbay oo waxa uu u gudbay dhanka qaylada ka yeeraysa. waxa uu arkay gabar meesha lagu jiijiidayo oo ayadana aanan raalli ka ahayn. isla durbadiiba waxa uu bilaabay inuu dhagax qaato walow ay ka badan yihiin kuwa meesha ku jira. waxa uuna bilaabay marna inuu ku tuuro dhagaxa, marna inuu u qayladhaamiyo shacabka meesha jooga ee guryaha ku wada jira. dhallinyartii ayaa waxa ay bilaabeen in ay dhagaxeeyaan wiilka. isna ma uusan bixin oo dhagaxyadii ayuu weli waday iyo qayladii. dhallinyartii ayaa orday ayagoona gabadhii waxba aanan ku samayn, keliya ay ka wada qaateen lacagtii ay ku soo wada adeegan lahayd. meeshaasina waxaa isku bartay Ifraax iyo Asad. lacagta buwaagtana waxaa bixiyey Asad, waxaa suuqana u raacay Asad. Asad waxa uu u sheegay Ifraax in uu yahay arday dhigta jaamacad, iskuulkana ay uga harsan tahay 2 fasalood. Ifraaxna waxa ay u sheegtay in ay tahay ardayd iskuula weli, in ay jaamacadda uga harsan tahay 2 sannadood. meeshana waxaa ka dhacay barasho guul laga gaaray. markii ay suuqa ka soo wada laabteen oo uu keenay ilaa albaabka xaafadeeda, markaas ayuu ku yidhi Ifraax, ma ka heli kala nambarkaaga adigoo raalliya, si khaladna aanan ii fahmin, keliya waxaan ahay walaalkaaga. Ifraax ayaa ugu jawaabtay, maba ahan in aad saasi dhahdo, waxa ay ahayd inaan aniga nambarkayga ku siiyo, laakiinse adigaaba ii weydiiyey, taasna ma ahan mid dhib keeni karto. waa kan nambarkayga qoro, waan fiicanahay. waxaa sii raacsana hadalkiisa, ma isticmaashaa aaladda internetka? waxa ay ku tiri haa waan isticmaalaa, waxaan ka isticmaalaa Nimbus iyo Facebook iyo WhatsApp. markaas ayuu ku yidhi isii Facebookkaaga, WhatsAppkaaga waan bahayaaye. Facebookgeeda ayaa waxa ay uga qortay WhatsAppka. isna waa uu arkay, waxa uu ku yidhi waad mahadsan tahay, adigaa mudan ayay ugu jawaabtay. halkaasi waxa ka bilaabmay barashadooda yeeshay ka dhex martay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu ku yidhi inaan kuu soo martiya ayaan ayadana waxa ay u aragtay wiil ixtiraam leh, reerkeedana ugu imaanaya iyadoo weliba u haysata si walaalnimo. markaasi ayuu u yimaaday xilli ay tahay galabnimo. waxa ay bartay waalidiinteeda oo idil, waxa ayna u sheegtay wiilka badbaadiyey inuu yahay Asad. isna si wanaag leh ayuu ku bartay reerkeeda oo idil. kadib marka laga soo gudbo reerkeeda ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday sida ay khadka ugu wada hadli jireen inuu ka codsado in ay guriga ugu imaado. markaas ayaa waxa ay ku tiri waalidkayga iima oggolaanayaan in aan bannaan baxo. isna waxa uu ku yidhi waayaa xitaa qof soo wado. markaas ayaa waxay isku dayday in ay waalidkeeda ka codsato. waxaa lagu yidhi ma waalatay markaad adiga wiil u tagayso? markaas ayay ka diiday. waxa ay ku tiri waalidkay iima oggolaan in aan meel aado. waayahay, dhibaato ma lahan. isagoonan ku xumin ayuuna uga mahadceliyey. waxaa dhacday isla isbuucii ama weygiiba inuu ku soo laabtay guriga gabadha Ifraax. uu ehelkiya dhammaan soo wada salaamay. Ifraax oo weliba ku sii faraxsan, waxa uuna u sheegay in uu leeyahay xaflad aroos, Ifraaxna ay ka soo qayb gasho. waalidiinteeda dhammaan waxa uu ka codsaday Ifraax in ay fasax u siiyaan si ay uga soo qayb gasho xafladda aroos ee Asad. waalidiinta dhammaanna waa ay ka oggolaadeen in ay ka qayb gasho xafladdaasi. Asad aad ayuu ugu farxay arrintaasi. nasiib wanaag waa ay ka soo qayb gashay Ifraax xafladdaasi. Asadna waxa uu ugu talagalay qol khaasa inuu ku soo dhaweeyo Ifraax. waxa uuna balamiyey habeen 3 saac ama 9 habeennimo. Ifraax iyo saaxiibadeeda oo isla socda ayaa yimid. xilligaasi Ifraax ayuu ku soo leexjiyey qolkii uu ugu talagalay, gabadhii kalena wallow uu geeyey goobta ciyaarta. waqtiguna uu ahaa gabagabo, balse uu isaga talagal uga dhigay in ay yimaadaan xilliga gabagabada ah. waxaa dhacday inuu Ifraax qolka la galo una sheegto jacayl, inuu jeclaan jiray haddana jecel yahay, balse sugayay jaanis nuucan oo kala. Ifraax ayaa ka diiday oo dhan walba uu ka soo maro. waxa ayna ku tiri ma gurigan kaaga tagaa mise waad iga dayni kelmaddan oo kale? markaas ayuu ku yidhi inakeen waxyar ayaan kaa dhaadhicinayaa. waxa ay ugu jawaabtay waxba ha iga dhaadhicin, hadhowna halkaanaan ka sii tagaya xaafaddeeda u laabanaya, iska keeda
markaas ayuu ku yidhi waan ku baryaa ina keen guri hoos saasna waxa ay ku siisay nambarkeeda. kadib asad ayaa waxa uu diyaarinaya cashar looga baahan yahay beritoole asagoo dhammeeyey cashirkii uu diyaarinayay iyadoo saacadduna ay ahayd 12 habeennimo ama 6 saac habeennimo. markaas ayaa waxa uu soo xasuustay ifraax in uu waco. xilligaasi ayuu ifraax soo wacay. ifraax ayaa soo kacday, taleefanka ayay ka qabatay. waxa ay ku tiri yaa waa adiga. markaas ayuu ku yidhi waa asad. isla markiiba ifraax waxa ay iska dhigtay ruux aanan hurdin wallo uu asaga abaal u galay. waxa ay ku tiri ii waran abbow xaaladda caafimaadkaaga iyo wax la mida kolley marka la isdhaafsaday caafimaadka iyo markaas ayuu ku yidhi ma hurdadan kaa kiciyey. waxa ay ku tiri maya igama kicin oo horaan u soo jeeda caawa hurdada ima hayso ayadoo ulajeedkeedu ahaa waa nin abaal kuu gale ha dhihin waan jiifay oo waad i kicisay. ayadoo sheekada halahaas maraysa ayuu ku yidhi waayahay hadda seexo oo si walba ay noqotaba ku seexo beri anaa ku soo wici doonay. waxa ay ku tiri waayahay waadna ku mahadsantahay abaalkii aad ii martay anna kuuma mahad celinne. markaasi ayuu ku yidhi waa wax caadiya wax dhibaataa ma lahan. kadib subxii ayaa waxa uu u soo diray mesajkaasi oo ahaa ii waran xaaladdaada caafimaadkaaga. markaasi ayadana waa ay uga jawaabtay mesajka. ayadana waxa ay ku tiri waan fiicanahay oo adiga xaaladdaada caafimaadkaaga. isna waxa uu ku soo jawaabay anigu. mudanayaal iyo marooyin ku soo dhowaada qisadani oo ah qiso naxdin leh. qisadani waxa ay ku dhacday lamaane lagu kala magacaabo asad maxamed aadan iyo ifraax cali macalin. asad waxa uu ahaa arday dhigta jaamacad ugana harsan tahay 2 fasalood ama 2 galaas. ifraaxna waxa ay ahayd arday iskuul dhigata oo foomana ama fasalka 11aad. maalin maalmaha ka mida ayaa ifraax waxa ay suuqa ka tabanaysay in ay soo iibsato buugaag ayadoo weliba xaafadda ka tagtay xilli ay tahay duhurnimo qoraxduna ay kulushahay. ayadoo ku sii dhow magaalada ayaa waxaa arkeen dhalinyaro ciyaar suuq oo meel wada fadhiya. isla markaana waa ay daba kaceen oo ayadana waxa ay sii fududaysay socodkeeda. kadib waxa ay gaartay meel luuqa ama meelo laablaaba. isla markaana dhalinyartii soo daba kacayeen waxa ay isku dayeen gabadhii in ay xoogaan. waxaa soo orday mid ka mida kuwa ciyaar suuqa ka tirsan. waxa uuna isku dayay inuu gabadha gacanta ka qabto ayadoo weliba ku qeylisay dharbaaxna ku dhufatay. isla markaaba waxa ay soo kaashaday dhammaantooda oo meel waxa ay geliyeen indhuhu eegi kareen. waxa ay bilaabeen in ay jiijiidaan dharkeeda iyo gacmaheeda oo idil ayadoo weliba markaasi qeylinaysa. marba marka ka sii dambaysa ka sii qeyli daraysa ayaa waxaa meesha soo maray wiil. waxa uuna maqlay